In ka badan 6 bilood kadib markii uu bilowday dagaalka Ukraine, dagaalkana hadda kuma jiro wararka xiisaha telefishinada caalamiga ah ee gudbinta tooska ah iyo sidoo kale tabinta khudbadaha tooska madaxweynaha Ukraine, taas oo hoos u dhacday iyadoo sidoo kalena rabitaankooda ah in ay u hoggaansamaan cutubyo caan ah oo ku saabsan dhacdooyinka bamka Ruushka ee bartilmaameedyada Ukraine, ha ahaato rayd ama ciidan ama duulimaadka kumanaan Ukraine ah, dadka ka soo qaxay magaalooyinka iyo goboladooda, inkastoo dadka reer Ukraine ay noqdeen kuwo awood u leh in ay weeraro xanuun badan ku qaadaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Ruushka kuna sugan bariga ama koonfurta Ukraine. Warbaahinta waaweyn ayaa dhif ah inay isku dayaan in ay akhriyaan doorsoomayaasha dheelitirka awoodda saaxadda ee goobta dagaalka iyo suurtagalnimada horumarkeeda qaab ahaan ra'yiga dadweynaha adduunka, iyada oo aan loo eegaynin waxa ra'yiga adduunka si faahfaahsan uga dhigan tahay. Waxay u muuqataa inay isku dayaan inay ka xoroobaan culayska dagaalka Ukraine, kaas oo miisaankiisu yahay bilaha jilaalka iyo guga, iyo sababta oo ah dagaalku waxa uu qarxay labadii sano ee dambe ee cudurka faafa oo ku dhawaaday in uu curyaamiyo inta badan wadamada adduunka. Waxay u muuqataa inay u taagan tahay bog cusub oo shirqoolka cudurrada iyo sidoo kale siyaasadda ee nolosha bulshada aadanaha oo dhan. Markii xagaaga la soo gal iyo sida ay u yaraatay khatarta cudurka, warbaahinta iyo goobjoogayaasha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxay u yaaceen inay isku dayaan in ay meesha ka saaraan matalaadda cudurka iyo dagaalka labadaba. Xaqiiqda waxa ay tahay in dagaalka Ukraine uu weli socdo mana la joojin, qofna ma filan bishii Febraayo 2022 ee lasoo dhaafay midkoodna dhinaca Ruushka ama Ukraine ama wadamada kale ee adduunka in dagaalku uu sii socon doono bilahan oo dhan, iyada oo la muujinayo calaamado muujinaya inuu dhammaaday dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay. Madaafiicda iyo gantaalada ay isweydaarsanayeen labada dhinac ee dagaalka ayaa gaaray heer aan horey loo arag marka laga soo tago tirada badan ee dadka reer Ukraine ee barakacay, ha ahaato in ay ka tageen dalkooda oo ay gaareen dalal kale ama u guureen meelo nabdoon oo gudaha ah. Dagaalka ayaa weli burbur weyn u geystay magaalooyinka Ukraine ee bariga, iyada oo ay u dheer tahay khatarta nukliyeerka shucaaca haddii dhirta Zaporozhye ee koonfurta ay waxyeello soo gaarto. Ukraine oo ah mid ka mid ah warshadaha tamarta nukliyeerka ee ugu weyn adduunka, laakiin tan ugu khatarta badan ayaa ah in qalalaasaha Ukraine uu horay u horumaray iyada oo aan ogolaansho cad laga helin wadamada waaweyn oo galay qalalaase caalami ah oo saameeyay inta badan wadamada adduunka, kuwa doorbiday inay qayb ka noqdaan dagaalka markii hore iyo sidoo kale kuwa iska diiday inay qayb ka noqdaan intaba. Sidee bay u dhici kartaa in qalalaasaha ka bilaabmay khilaaf xuduudeed oo heer gobol ah iyo heer qaran ah oo la xiriira taariikh aad u qalafsan iska hor imaanaya ay isu rogaan dhibaato caalami ah? Ilaa intee la eg ayuu dagaalka Ukraine dib u sawiri karaa qariirada awoodda adduunka? Isbeddelka dagaalka hadda wax faa'iido ah ma lahan in lagu soo laabto sababaha keenay Ruushka inuu bilaabo dagaalka, iyo haddii go'aanka Ruushka uu ka soo bilaabay muhiimado istiraatiijiyadeed oo degdeg ah. Waxa muhiimka ah ayaa ah in dagaalku ku salaysan yahay toddobaadyadii ugu horeeyay mabda'a militari ee Sofiyeetka, isagoo ujeedadiisuna tahay in la gaaro istiraatiijiyadda xakameynta Ukraine. Taasi waa yoolka koowaad ee Moscow. Waxa uu ahaa inay jab militari oo ba'an u geysato ciidanka Ukraine oo ay ku jirto in ay ku soo rogaan go'doomin buuxda Kiev, kadibna ay ku soo celiyaan gobolka Ukraine gacan ku haynta Ruushka oo gabi ahaanba ka gooyaan Ukraine reer galbeedka, si la mid ah sida uu xaalka Belarus noqday. Hogaamiyaasha dagaalka Ruushka waxa ay ka shaqeynayeen inay weeqaan jagooyinka difaaca iyo inay burburiyaan awoodaha militari ee Ukraine iyagoo isticmaalaya duqeymo kala duwan si ay ugu diyaar garoobaan horumarinta tiirarka gaashaaman ee dhowr dagaalyahano oo ku wajahan Kiev iyo dhowr magaalo oo kale oo Ukraine ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay sabab u tahay adkeynta iska caabinta Ukraine ama awoodda sahayda militari ee reer galbeedka, Ruushka ma gaari karaa yoolalka weerarka ugu horeeya ee xawaaraha la filayo? Ukraine waxay ku guuleysteen in ay khasaare ba'an u geystaan ciidamada Ruushka ee ku siqaya Kiev iyo Kharkiv, gaar ahaan oo dagaalkii Mariupol u rogay go'doomin qaali ah. Taasina waxa ay keentay in hoggaanka Ruushka uu bedelo habka dagaalka. Ciidamadii weerarka Kiev way ka baxeen oo ma awoodaan inay weeraraan Kharkiv. Hoggaanka Ruushkana iyagana waxa ay meesha ka saareen mabda'a dagaal weerar ah oo degdeg ah oo xoog badan, iyaga oo qaatay istiraatiijiyad dagaal oo si tartiib tartiib oo horumarsana. Moscow ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in lagu xakameeyo gobolka Donbass si loo ilaaliyo dadka laga tirada badan yahay ee ku hadla afka Ruushka ee Ukraine, iyo sidoo kale in la sugo ammaankooda iyo xasiloonidooda marka laga soo tago inay gacanta ku hayaan qaybta koonfureed ee Ukraine oo xuduud la leh Crimea oo lagama maarmaan u ah amniga jasiiradda, iyo halka Moscow ay xisaabisay in sarreynta luqadda Ruushka ku leeyahay dadka koonfurta ay ka dhigi doonto joogitaanka militariga Ruushka arrin sahlan. Dhinaca kalena, Kiev ayaa ka tunaasushay habkii wadaxaajoodka ee ay kula jirtay Ruushka,
ha ahaato cadaadiska reer galbeedka ama ha ahaato in hogaanka Ukraine uu garwaaqsaday in aanu aqbali karin dalabaadka ugu yar ee Ruushka, waxaana uu go'aansaday inuu sii wado iska caabinta weerarka Ruushka markii ay quwadaha reer galbeedku ogaadeen in Ukraine ay damacsan yihiin inay dagaalka sii wadaan. Mareykanka iyo xulafadiisa reer Yurub ee NATO waxa ay bilaabeen abaabulka saad taageero militari ee istiraatiijiga ah ee Ukraine. Mareykanka, Ingiriiska, Jarmalka, Bulgaariya iyo Poland waxa ay siiyeen reer Ukraine nooc kasta oo rasaasa, cutubyo madaafiica, gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada dheer, iyo sidoo kale baabuurta gaashaaman iyo qoryaha lidka diyaaradaha. Xitaa waxaa jira cadeymo muujinaya in Turkiga inuu ku taageeray Ukraine tiro ka mid ah gawaarida gaashaaman iyo sidoo kale inay sii wadaan bixinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar oo Kiev ay qandaraas kula gashay inay soo iibsato ka hor inta uusan dagaalku dhicin. Intaasi waxaa dheer, bishii Juun 2022 Britain waxay ku dhawaaqday qorshe lagu tababarayo 10,000 oo askari oo Ukraine. Waxaa la rumaysan yahay in khubarada militariga reer galbeedka ay ku sugan yihiin dalka Ukraine iyaga oo hoos imaanaya qaab diblomaasiyadeed si ay u caawiyaan ciidamada Ukraine inay ku tababaraan qalab militari oo casri ah ama xitaa adeegsiga xeeladaha qalabkan. Intaasi waxaa dheer, Mareykanka tan iyo intii uusan dagaalku dhicin waxa uu bixinaya macluumaad sirdoon oo xilliyada marka ay u baahdaan dadka reer Ukraine. Kaalmada militariga ee reer galbeedka ee Ukraine ayaa ilaa hadda gaaray in ka badan 10 bilyan oo dollar. Ma jirto wax muujinaya in caasimadaha reer galbeedku ay daboolka ka qaadeen gargaarkan. Si kale haddii loo dhigana, reer galbeedka waxa ay dagaalka Ukraine u arkaan goob daal iyo daciifnimo ay ku hayaan Ruushka iyo xukuumadda Putin. Dagaalka bahalnimada ah ee uu Ruushka ku doonayo in uu jilbaha u dhigo dowladda iyo ciidamada Ukraine ayaa waxaa dagaalka u galay quwadaha waaweyn ee reer galbeedka si aan toos ahayn, si ay meesha uga saaraan ciidamada Ruushka iyo madaxda Ruushka. Sababta oo ah dagaaladu waa kuwa waqtigooda dhicin, qofna ma saadaalin karo dhamaadka dagaalkan. Waxaa jira warar sheegaya in khasaaraha Ruushka ee dagaalka uu kor u dhaafay 15,000 oo dhimasho ah 6 bilood ee ugu horeysay dagaalka oo ay ku jiraan 10 saraakiil sarsare ah. Waxaa sidoo kalena jira calaamado muujinaya in mashiinka dagaalka ee Ruushka uu bilaabay in uu muujiyo ciladaha qaarkood sida awood la'aanta in uu soo saaro shuruudaha dagaalka ee madaafiicda iyo gantaalada ama bilowga wadahadalka Iran si loo helo tiro dheeri ah oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah. Hase ahaatee, waxaa jira kuwa tilmaamaya in dagaalku u baahan yahay tiro badan oo askar iyo sidoo kale in dowladda Ruushka ay bilowdo olole shaqaaleysiineed oo firfircoon oo Ruushka oo dhana, iyadoo ujeedaduna tahay in laga fogaado in lagu dhawaaqo abaabul guud. Waxaana laga saaray tiro badan oo askar Ruush oo sanado badan ku sugnaa Suuriya iyo Liibiya. Si kastaba ha ahaatee, marka laga soo tago dhibka lagu xaqiijinayo tilmaamayaasha ama akhrinta muhiimadooda dhabta ah, dagaalka ka socda gobolka Donbass ayaa markhaati ka ah horusocodka joogtada ah ee ciidamada Ruushka, inkasta oo ay aad uga gaabiyeen wixii laga filayay ciidanka oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee militariga dunida. Dagaal dhaqaale sidoo kale. Iskahorimaadka Ruushka iyo reer galbeedka ee Ukraine kuma ekeen oo kaliya saaxadda dagaalka, balse wuxuu sii fidiyay tan iyo bilowgii qalalaasaha dhanka dhaqaalaha wadamada reer galbeedka iyagoo aan lahayn qaraar qaramada midoobay, waxayna cunaqabateen isdaba jooga kusoo rogeen Ruushka. Dowladda, qaybta ganacsiga iyo saraakiisha waxayna soo dedejisay in shirkadaha waaweyn ee reer galbeedka ay ka baxaan suuqa Ruushka hadday yihiin kuwa ka shaqeeya qaybta adeegyada tamarta ama dhaqanka iyo warshadaha elektarooniga ah. Waxaana la hakiyay isu socodkii hawada ee u kala gooshaya Ruushka iyo inta badan wadamada reer galbeedka. Wadamada Yurub waxa ay go'aansadeen inay joojiyaan soo dejinta dhuxusha Ruushka, waxayna si tartiib tartiiba u yareeyeen soo dejinta saliidda iyo wax soo saarka saliidda. Sidoo kalena, wadamada reer galbeedka ayaa xayiray dhaqaalihii Ruushka ee ku xariisnaa bangiyadooda oo isugu jiray dollar, pound iyo sidoo kale euro. Waxaana caasimadaha waaweyn ee reer galbeedku ka bilaabmay dood ku saabsan bal inay suuragal tahay in dhaqaalaha Ruushka ee la xayiray loo adeegsado dib u soo celinta burburkii uu Ruushku ku sameeyay dalka Ukraine. Ruushku waxa uu dagaalka dhaqaale kaga jawaabay dhowr siyaabood. Midda koowaad waxay ka muuqatay cunaqabateyn ka dhan dalalka reer galbeedka iyo saraakiisha iyo shirkadaha reer galbeedka ee ka jawaabay nidaamka cunaqabateynta reer galbeedka. Laakiin Moscow waxa ay ogaatay in cunaqabateynta ay kusoo rogto awoodaha reer galbeedka ay saameyn yar ku yeelan doonto dhaqaalaha reer galbeedka. Sidaasi darteedna, Ruushku waxa uu micin biday in uu isku dayo in uu faaruqiyo cunaqabateynta reer galbeedka ee ay ku jiraan, isaga oo suuqyo kale u helay shidaalka Ruushka sida Hindiya iyo Shiinaha oo uu ku iibiyo qiimo ka hooseeya suuqa. Marka la eego cabirka saddexaad ee Ruushka, waxa ay ahayd in la dhimo sahaydan gaaska Ruushka ee wadamada Yurub, kuwaasi oo tiro ka mid ah oo uu ku jiro Jarmalka ay inta badan ku tiirsan yihiin gaaska Ruushka. Ruushka ayaa sidoo kalena xayiraado kale kusoo rogay dhoofinta carrada dhifka ah, bacriminta iyo sidoo kale badarka. Midowga Yurub ayaa kusoo rogay dalalkooda hoos u dhigista isticmaalka gaaska laga bilaabo Agosto 2022. Tiro ka mid ah dalalka EU, gaar ahaan Jarmalka iyo Faransiiska, ayaa sidoo kale bilaabay inay ku noqdaan isticmaalka dhuxusha si ay uga shaqeeyaan dhirta korontada, taas oo ah dib u noqosho cad oo kasoo horjeeda siyaasadaha ilaalinta deegaanka.
laakiin qofna ma saadaalin karo xaaladda dalalka EU-da xilliga jiilaalka soo socda marka heerka isticmaalka gaaska ee korontadu iyo sidoo kale kuleeliyaha ay si weyn u kordhin doonto. Kor u kaca weyn iyo sidoo kale sare u kaca ee qiimaha ilaalinta tamarta. Qiimaha sarreeya ee tiro ka mid ah badeecadaha beeraha lagama maarmaanka ah sida sarreenka iyo bacriminta beeraha, hoos u dhac weyn oo ku yimid agabka la soo saaray ee isticmaalka jibiska elektarooniga ah, sare u kaca weyn ee sicir bararka. Kuwani waa qaar ka mid ah astaamaha ugu caansan ee dhibaatada dhaqaale ee adduunka. Waxaa jira 10 milyan oo qoys oo aan mar dambe maareyn karin nolol maalmeedkooda, ma ahan oo keliya dalalka dunida saddexaad laakiin sidoo kale dalalka daryeelka ee galbeedka Yurub. Inkastoo ay jiraan sababo kale oo la xiriira siyaasadda gudaha, dhibaatooyinka dhaqaale ee adduunka ayaa sii xumeeyay dhibaatooyinka dalal dhowr ah, waxayna bilaabeen inay u riixaan inay kacaan oo ay ugu muhiimsan yihiin Sri Lanka, Masar, Tunisia iyo Sierra Leone. Loolanka adag oo lagu sameynayo nidaamka caalamiga ah oo cusub. Ruushka waa kan bilaabay dagaalkan, laakiin ma joojin karo marka hore, sababta oo ah saadka military ee reer galbeedka ee Ukraine ayaa ku dhiirigeliyay Ukraine in ay sii wadaan dagaalka oo ay kor u qaadaan hamiga hoggaanka Ukraine si ay u gaaraan xoogaa guul ah ama ugu yaraan hagaajinta shuruudaha gorgortanka mustaqbalka. Marka labaad, sababta oo ah joojinta dagaalka ka hor inta aan la gaarin yoolalka Ruushka ee lagu dhawaaqay waxay la micno tahay dhicitaanka nidaamka Putin. Si loo sii wado dagaalka, Ruushku waxa uu sharaxayaa inuu u geysto dadka reer Ukraine khasaare culus oo joogto ah, taasi oo ay ku adag tahay inay sameeyaan wax guulo qeyb ah iyo sidoo kale inay sii wadaan iska caabinta. Laakiin Ruushku waxa uu sidoo kale sharaxaa in cadaadiska dhaqaale uu horseedi doono burburka midnimada NATO, kala qaybsanaanta reer Yurub ee iyaga ka soo horjeeda iyo dib u gurashada madaxdooda gaar ahaan Jarmalka iyo Faransiiska oo ay Moscow ku tilmaantay inay u hoggaansameen siyaasadda Mareykanka. Ruushka ayaa sidoo kale ka shaqeynaya sidii loo xoojin lahaa isbahaysiga Shiinaha, gaar ahaan kadib xurguftii bacneed ee xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha oo ka dhashay muranka ka taagan arrinta Taiwan, iyo in dib loo dhiso nidaam xiriir wanaagsan oo lala yeesho wadamada heerka labaad sida Turkiga, Hindiya, Sacuudi Carabiya, Koonfur Afrika iyo wadamada adduunka saddexaad gaar ahaan Bariga Dhexe. Dhinaca kalena, reer galbeedka waxa ay sharaxayaan in khasaaraha isa soo taraya ee goobaha dagaalka iyo cunaqabateynta dhaqaale ay wiiqi doonto nidaamka Putin, isla markaana ay wiiqayso awoodda Ruushka u leeyahay in uu dagaalka sii wado muddada dhexe. Quwadaha reer galbeedka ayaa cadaadis joogto ah ku haya si ay uga hortagaan in Shiinuhu taageero la taaban karo uu siiyo Ruushka, dhaqaale ahaan, farsamo ahaan iyo ciidan ahaanba. Waxaanay doonayaan in ay albaabada u xiraan dalalka heerka labaad iyo dunida saddexaad ee Ruushka. Mareykanka waxaa kale uu wadaa dadaalo joogto ah oo lagu ilaalinayo midnimada NATO, ka dhaadhicinta wadamada OPEC inay saliid badan ku shubaan suuqa, ka caawiyaan Yurub beddelka ilaha tamarta ee Ruushka, iyo sidoo kale ka dhaadhicinta dowladaha Yurub in Ruushka noqday khatar istiraatiiji ah oo ku wajahan mustaqbalka qaaradda iyo xasiloonida. Isla markaana Mareykanka waxa uu isku dayayaa in uu dhiso qadadka isgaarsiinta iyo xiriirka sii kordhaya ee uu la yeesho wadamada Qowqaas iyo Aasiyada Dhexe ee Sofiyeetkii hore. Midna ma aqoonsana madax bannaanida labada dowladood ee gobolka Donbass ee ka goosta Ukraine. Ka gadaal waxaasi oo dhan, Ruushka iyo Shiinaha waxa ay hadda raadinayaan inay bedelaan dhammaan nidaamka adduunka hadda jira, nidaamka ay hormuudka ka tahay isbahaysiga Atlantika, ama iyaga oo wiiqaya awoodda Mareykanka ku leeyahay arrimaha caalamiga ah ama u xaqiijiya meel ammaan ah oo ay ka helaan go-aanka caalamiga ah gaar ahaan Ukraine iyo Taiwan. Wixii intaasi ka dambeeyay, Ruushka iyo Shiinaha waxay ogaadeen in midkoodna uusan sugi karin danaha istiraatiijiyadeed ee muhiimka ah ama uusan gaari karin hadaf istiraatiiji ah oo qaran haddii tallaabadan ay la kulanto mucaaradka Mareykanka. Laakiin keenista isbeddel la taaban karo ee qaab dhismeedka nidaamka caalamiga ah ayaan weli u muuqan mid fudud. Afarta awoodood ee adduunka ugu waaweyn waxaa loo kala saari karaa iyadoo loo eegayo sida ay u kala awood badan yihiin ee dhanka awoodda saddexda dhinac ah: ciidan, dhaqaale iyo jilicsan. Tusaale: saameyn dhaqan, waxbarasho iyo akhlaaq sida soo socota. 1. Ruushka waxa uu leeyahay awood ciidan oo aad u sareysa, laakiin waxaa lagu tiriyaa awood dhaqaale oo heerka labaad ah, waxaana ka maqan awood jilicsan oo la taaban karo. 2. Shiinaha waa quwad ciidan iyo mid dhaqaaleba leh, balse saameyntiisa dhaqan iyo akhlaaqba waa mid liidata oo ay yar tahay. 3. Dhanka kale, Midowga Yurub waa awood ciidan oo daciifa, laakiin waxa uu leeyahay awood dhaqaale iyo dhaqan oo aad u baaxad weyn. 4. Xagga Mareykanka waxaa loo arkaa in awood iyo saameyn weyn uu ku dhex leeyahay saddexda goobood ee wadajirka ah. Macnaha qariiradan awoodaha awoodeed ayaa ah in Ruushka iyo Shiinuhu ay galaan isbahaysi dhow si ay awood ugu yeeshaan in ay ka hor yimaadaan
haybadda Atlantika ee nidaamka caalamiga ah, mana ahan qasab inay noqdaan maamulayaal awood leh iyo hoggaanka mustaqbalka la saadaalin karo. Ilaa hadda ugu yaraan way iska caddahay in Shiinuhu aanu doonayn in uu xulafo dhow la yeesho Ruushka, sababtoo ah Beijing waxay u aragtaa Ruushka inuu culays ku yahay isaga iyo saameynta dhaqaale ee uu ku leeyahay adduunka, kaas oo ku saleysan xiriirka caadiga ah ee reer galbeedka. Ama sababtoo ah Beijing ma rabto inay ku lug yeelato iska horimaadyo taariikhi ah ee Yurub duqoobay ee adag una dhexeeya Ruushka iyo reer galbeedka, mana jirta wax walwal ah. Ugu dambeyntii, si kastaba ha ahaatee, Ruushka iyo Shiinaha mar dambe ma soo gudbin karaan xeerka nidaamka caalamiga ah ee Euro-American, kaas oo ku baaqaya in la raadiyo saaxiibo kale iyo xulafadooda ka baxsan badweynta Atlantic. Sidaasi darteed, waxa ay u badan tahay inta lagu jiro marxaladan kala guurka ah ee masiirka nidaamka caalamiga ah in tartanka lagu kasbanayo asxaabta iyo xulafada uu cirka isku sii shareerayo afarta quwadood ee waaweyn, taas oo u ogolaan doonta in xad weyn ay ka soo baxaan awoodaha heerka labaad sida Turkiga, Koonfur Afrika, India iyo Brazil, haddii ay si wanaagsan u maareeyaan xiriirkooda dibadda oo ay ka fogaadaan eex aan cadaalad ahayn, xaqsiinta iyo inaan loo baahnayn mid ka mid ah awoodaha waaweyn ee ku loolamayo. Daawada aragtidaada qaybta hoose commentiga inoogu reeb. Mahadsanid. Waxaan kaloo ka codsanayaa muuqaalka inaad noo share gareyso, han iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsanid.